fadhigii maanta xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax ayaa waxay ku ansixiyeen wasiirka waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhawrista Amal Cabdi Xasan iyo Mukhtaar Ismaaciil Dhimbiil oo ah xubin kamid ah hay'adda dhawrista Soomaaliland kulankaasi ayaa waxa ka soo xaadiray konton xildhibaan haddaba markii uu kulankaasi furmay ayaa xogayaha guud ee golaha wakiilada waxa uu xildhibaanada u akhriyay siifiyada mas'uuliyiintaasi markuu arkay aqoonsiga kartiisa way meelaysaa markuu ku qancay maanta mas'uuliyadan laga bilaabo maanta wuxuu magacaabay inuu noqdo xubin ka mid ah guddiga محمد إسماعيل الجبيل الله محمد المصدق عبد مدعونا جمهورية الصوماليلاند محمد إسماعيل الجبيل نيجاتيف باكجراوند كيسي 208 لا 210 فانيشال مانجمنت أيو صوت عطي 207 208 هو عطي هيومن ريسورس مانجمنت هكذا 1992 لا 20 هو عطي بيسك بزنس مانجمنت MVP 1989 financial accountant 1986 وقف حيوسيا سلام أحمد علي محمد أحمد علي سكندري سكول بوشو 1978 وقف حيساحة بريميري سكول شغل بصوت ويبدأ أرجع وحقول الفضاء حق سيا قانت غديسي شهادة عقبات في البلاد بدي أرمها deegaan kale waxay qoraa ku codsanaysaa in xubinta loo ansixiyo loo soo magacaabay booska markuu arkay wareegto madaxweyne magacaabis markuu arkay dastuurka jumhuuriyadda Soomaaliya sagaashanaad markuu arkay aqoonteeda iyo kartida iyo waayo-aragnimadiisa markuu arkay inay hanan karto xilka loo magacaabay wuxuu sameeyey la tashi ballaaran wuxuu go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta mas-uuliyadda loo magacaabay xilkan أمال عبد الحسين اللي كان من ضغوطها هيدا جمهورية الصوماليلاند أمال وحي كسر بحضي جامعة ساينت كاتالينا باتلر ديجري أوف نيرس أمريكا عالسي وعكروا توسي وسيسة توسي لتوبي أي جامعة لبسي 1995 فيلم 1998 نوع كسر بحضي سكول لبكينا كيلو هاي سكول دبلومة كالعالتي 1995 certificate because I did school شغوي فرضاً ونفس كابي صوتي ويكسر شغلتي دلك الدبدي سا ويبدأ تاي مريكا يوم يأخر فرضاً ويكسر نقطي محاكم على سوبرفايزر ويكسر نقطي شغوي فرضاً أربعة وحكم تعالى وردت يرجع عمات شيء جديد بالبيان intaasi kadib gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa cod galiyay ansixinta mas'uuliyiintaasi Cismaan Jaamac Aadan wasiirka waxbarashada iyo sayniska inta oo gacanta gacanta tajiyo xildhibaanada diiday gacanta taagay yaa ka aamusay Cismaan Jaamac Aadan waxaa saxiixay konton xildhibaan ciidamadii ciidamada muslimiin gudoomiye ugu coday sidaas waa saxiixa Maxamed Ismaaciil Dhimbiil in loo ansixiyo guddiga tayada xildhibaanada oo gacanta Maxamed Ismaaciil waxaa saxiixay konton xildhibaan ciidamadii ciidamada muslimiin gudoomiye ugu coday sidaas waa saxiixa أمل عبد حسن حلمان أمل عبد حسن حلمان هذا الرجل عنده أمل قطع الحياة بعصيه إذا كمان جديد إذا كمان مصير دولي وروح عليه سلا صور عياس حقوق golaha wakiilada maanta la ansixiyay xilka madaxweynaha soo magacaabay anagoo ah hay'adda dhawrista tayada hay'adda salaamaha faraxsanahay dareenkeeda ma soo koobi karo shaqada loo
shaqeeyaa annagoo dhan tiimka hay'adda dowladda magacay waa Maxamed Ismaaciil Dembiil maanta wasiirka baarlamaanka nala ku ansixiyay codka loo yaqaano full house-ka codka aqlabiyadda ah alxamdulilah rabbil caalamiin waan ku mahadcelinayaa dhammaan xildhibaanadii noo codeeyey xildhibaanadii na ansixiyey sidoo kale waxaan mahad ballaaran usoo jeedinayaa madaxweynihiisa soo magacaabay xilka noo igma xilkan kolley waa aad u culus waa xil waajibaadkiisa nalaga sugayay inaan gudano waa xil aan u qabanayno guud ahaan shacbiga Somaliland meel kastoo ay joogaan saxaafadan waxaan salaamaya dareenkayguna maanta mid la soo koobi karo intii ma aha maadaama oo aan codka full house-ka baarlamaanka hortiisa ka qaadanay markiina la eegay aqoontayada tayadayada kartida aan u leenahay Khalid Cismaan Ibrahim Zom News TV magaalada Hargeysa.